بسم الله والحمد لله صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal waxaan rabay inaan ka hadlo arrintii maanta dhacday. ilaahay subxaanahu watacaala yaa mahad leh. kolley markaa madaxweynaha horta waa ku mahadinaynaa, qoladii hadda ku taageertayna waa ku mahadinaynaa. haddee si uun maaragtay dhibkii jiray oo ama diin ha ka jiro ama dan ha ka jire qaarkood in la fududeeyo oo sharta la yareeyo waa wax oo runtii waa wax aada iyo aada muhiim u awaay. marka haddii shartii nala ka yareeyey oo xataa ugu yaraa anigu madaxtooyada meel u dhowaan ku jiraa, marka haddee labadii ciidan dhexdoodii aan ku jiray, marka ahalkii iyo waa iska qaxiyey dhib intaasaa marka igu filan aninkaasaa dhib igu ahayd aniga, yani aan baaxirnaade intaas lafteedu marka waa nooc oo inay joogsato waa mahad weyn waay. laakiin haddee mushkiladii aniga haddee agtayda amaba haddee qofkii muslimahoo dhanba mushkiladii hadde intaas kuma dhammaanin waa qaar ka mida mushkiladiina haysatay waay, qaar ka mida waay. sababta weyn meesha waxay naga haysataa maarata ugu weyn uguna daran waxa weeyaan waa diinta xaggeeda wan. oo sidii 60kiiba ama 61dii sidii wadaadkii sheekh caliha u sheegay sidii loogu kufriyey, aniguna dhan kalena waa ka hayay, sidii loogu kufriyey oo ilaahay loogu kufriyey kitaabkiisii weli halkiiyaan weli joogna. waxaan kusii darnay inaan maaragtay asnaam inaan ku beerno wadankii oon keeno ayaa ku darsantay. marka kolleyba haddee qofka ilaahay subxaana watacaala qofka muslimka ahi waxa uu naftiisa la jecel yahay dadka dhanna la jecel yahay, waxa uu naftiisa la jecel yahay oo dadka dhan la jecel yahay. marka laba arrimooda marka meesha ku jirta oo mid madaxweynaha iskale, midna waa wada leeyihi baarlamanka iyo madaxweynaha iyo dowladda oo dhanba iyo xukuumadda kulli. mid madaxweynaha iskale waxaa laga yaabaa maaragtay ninkii ka horreeyey ninkan hadda joogo Rooblaa ninkii ka horreeyo xasan ahaa inuu la leeyahay. marka waxa weeye waa mid waxa weeye waa asnaamta waay. weliba madaxweynaha anigu waxaan ku leeyahay ma garanayo, hadda ka horna waa u sheegay inaan hadda oo laba shayba lama hubo, inaad soo noqonaysid lama hubo, inaad noolaanaysidna lama hubo. labaduba wax ilaahay gacantiisa ku jira waay. marka aniga waxaan ku dhihi lahaa inta hadda waktiga aad haysatid ka faa'iidee oo kiiskaas waxaan sheegayaa asnaamta burburi baan ku oran lahaa. meesha ka qaad burburi iyadoo calan burburi kiiskaas waxa dad aakhira dan ka leedahay oo naftaada aad adigoo aakhire ay danu kaaga jirto oo dadka maaragtay kolley muslimkaahi waxa weeyaan inta badan haddaan cilmaaniyiinta aysan ahayn, inta badan waxa weeyaan maaragtay cilmaaniyiintu saysa yihiin aan garanayn oo waxaa la yidhahdaa aakhire iyo ayaga waxba kagama jiraan. marka haddada saas ahayn aakhiradanu kaaga jirto bahaladaas burburi intaad nooshahay, inta waktigu aad ka haysatana bahaladaas meesha ka qaado burburi. midda idinka wada dhexaysa waxa weeyaan kiiskan ilaahay subxaana watacaala 60kii aan ku kufrinay welina halkii ay marayso oo shareecadiisii aan xoornay oo aan gadaal ka tuurnay. shareecadan xilaa idinka saaran inta hadda bahalkii muxuu ahaa aada wakti haysataan kiiskan wax ka qabta kulligiina idin leeyahay. baarlamanka ha ugu darnaadeen shal baarlamanaas aa yidhi ma ku dhaqmi karno
walow hadda markii shariif xoogaa yar maaragtay hadda aan macno lahayn oo ahay maaragtay shareecada kale garanayay inuu rag iskaga celinayay laakiin uusan daacad ka ahayn oo laga garanayo sidii in cabdirashiid uu la hadlay oo shareecadii marka aan qaadanay shareecadii gacmaha goynaysay ma ahan dhahay waxaasna maaragtay waa taxillatul qasam ay ahayd ma aysan daacad kama aysan ahayn daacad hadday ka tahay markii hore u xafidi lahaa markii hore u xafidi lahaa oo ilaahay ku cizeeyey oo cizadiisa ilaashan lahaa shariifaan sheegay markii ilaahay ku cizeeyey oo cizadiisa ilaashan lahaa oo ku ilaashan lahaa diintiisa oo diinta ku ilaashan lahaa ma uusan yeelin adduunyuu ka doorto markii dambena maaragtay rag isaga celiyo maagay laakiin ayadiina waa fasaadiyey marka waxba hadda maaragtay waa laga yaabaa maaragtay bahalkii maxay ahayd qaraar ahaan inay u qorantaa waa iska dhici kartaa ilaa hadda waa iska dhici kartaa laakiin waxa weeyaan wax la hirgeliyey maaha wuxuuna diintan ilaahay wuxuu usoo dejiyey in lagu camal falo midda kale waxa weeyaan yani adduunka yani waxyaala la yaab la waay yani ummad ilaahay inta nicmo siiyey nicmadeedii aan ku naaloonin waxa weeyaan oo annaga naga cajaa'ib badan maba jiraan aslan yani nicmada ilaahayna siiyey inaanan ku naaloonin oo aanan ku faa'iidin oo aanan ku deeqtoomin wax la arkoo la maqlay ma waxaasna waxaa u sababa waxa weeyaan ilaahay ka tegidda aan ka tagnay ilaahay wax walba anagoo haysanaa wax walba ilaahayna weysiiyey wax walba waa haysanaa wax walbana ilaahay waana weysiiyey waxyaala la yaab la waa diin waa haysanaa laakiin waa xoran ilaahay marka waxa weeyaan xoolo waa haysanaa ilaahay nooma barakayn badaan haysanaa alla nooma barakayn waxa weeyaan maaragtay yani qoraxaan haysanaa alla nooma barakayn ariyaan haysanaa alla nooma barakayn geelan haysanaa alla nooma barakayn yani waxaan la yaabanaha wax la yaab la waayo ummad dhan oo wax walbana haysata wax walbana cayr ka ah weligaytan oo kale ma arka waxaan marka sababta waxa weeyaan waanan ilaahay sidau noogu barakayn lahaa aanaan samaynin walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard walakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yaksibuuna waa kaas hadday wuxuu yihi ahlu quradu ay ilaahay rumeeyaan oo alla ka cabsadaan waxa weeyaan lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalardi dhulka iyo cirka maaragtay aan u furi lahayn barakadeed walakin kadabuu waa beeniyeen walakin kadabuu soo maaragtay waa beeniyeen faakhadnaahum bima kaanuu yaksibuun waxay marka samaynayeen aan ku qabanay buu yihi annaga marka hadda cadaab weyn dushana lakagama keenin laakiin waxa weeye wax iyagii alla noo barakayn waayey cayrankana annagoo maarata tanaadiin aan cayrkana markaasaa dabciga iyagu wuxuu yahay iyo dowladnimada iyadu baryay ku nooshahay inna lilahi wa inna ilayhi raajiun wax walba ilaahay iyaguna siiyey aan baryo uga nool sababta waa maxay alla barakayn maa wixi alla barakayn maa allihii noo barakayn lahaayaan ku kufrin aan ka tagin marka arrintan waa arrin khatara waay niman yahow marka intaad wakti haysataan waxaana waxay dhihi jireen culummadu waxay dhihi jireen hadda xadiid kuma arag laakiin waxa weeyaan culummadan ka maqli jire faweylun lidayaani samaa min dayaan ardi yani xaakimka cirka waxaa yani xaakimka dhulka waxaa dhibkahay iyo waxaa dhibaa kala haysta xaakimka cirka iyo xaakimka dhulka maalin qofkan bani aadamkaah dhulku xukuma isagaa xukuma yani qadarka lama sheegayo laakiin maamul ahaan ayay kaa joog ilaahayna waa la xisaabtamaya marka waxa yani cadaabaa kala haysta waay yani dhibaa kala haysta waay sababta waxa wey waa la xisaabinaya waxaan ummadan ka dhex dhacoo dhan ay adinkaa laydinku xisaabina waxaas fasaada oo ilaahay ummadda dhexdooda ka dhaca adinkaa laydinku xisaabina sababta waxa weeyaan adinkaa xaakim u ah markaad xukunteenna ilaahay jidkiisii baad ka leexideen jid cidlahaad qaadsiideen wax alla wixii ku dhaca adinkaa mas-uulka ah adinkaa laydinku xisaabinaya sababta waxa weeye adinkaa ilaahay ka leexiyey jidkoodii ilaahay jidkiisii adinkaa ka leexiyey war marka arrintaana degniin weyn aan ka wadna war jooga war waxaanu ma sahlana war meeshaan aad ku ordaydaan khayr weligiin idinkagama imaan
marka kiiskaasaan rabay inaan baraarujiyo idinku baraarujiyo ma daynaayo inaan idinku baraarujinayo inaan idiin sheegaynina ma daynayno sababta waxa weeyaan xilaa naga saaran naga laftayada xilka iyagu waxa weeyaan inaan idin gaarsiino waay waa xilkii ambiyada waay haddaad diidaanna wixii idinkaga yimaada haddii adinkaa waxa weeyaan adinku hadhow ay is eedinin annagu xilkayaga waa gudanaynaa insha allahu tacaala soo marka inta naftu nagu jirto xilkayaga waa gudanayna war niman yahow waxa weeyaan waxaan maaragtay bahalkii aad u danaysanaysaan lacagta xunood meesha ka qaadataan hadhow waxay naara idinku noqoneen saa ummaddan hadhow ummadduna hadhow waa waxa weeyaan adinkaa is eedaynaya xataa ida daarakuu fiiha jamiican waa naartii waay حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون ولكن لا تعلمون لوضبوا جرتا سو ماركتي ورمحان مركي نارت اللي اسكوكوتا قال لي ورمارتي كوي دمبي او مارتي بهلك ورمحات صاديك وحن نولها ورديك فضي مكة اللي هنا إله نارت أبدي معناه عذاب ضعفا من النار إله قليوه عذابت إله أبدي مكة الدونين اسكم إذا أنا أما اسكم إذا يهيني ويسك ورقبي سو موجود مركا وحكا وخطره وحويان نمن يهو إلهي كبغى نمن يهو إلهي كبغى ورميشان ميل سهلا ما ورميشان ميل سهلا ما ورميشان آد كو أرديسان ميل سهلا ما meeshaan kaloo aad ku ordaysaan oo gaalada raadqaad keedana waxaan rafaadahayn ka heli maysaan waxaan rafaadahayn idinkaga imaan maayaan ummaddana waxaan khasaarahayn uga imaan maayaan cadaab adduunye iyo cadaab aakhira isku darsanaysaan cadaab adduunye oo baraka idinkaga imaan ma cadaab aakhirana waa waxa weeye waa idin diyaar sababta ilaahay jidkiisa ummaddii ka leexiseen waana ku cadaab mudanaysaan marka intaasna waa idinka dhaxaysa ninkaas waxa weeyaan madaxweynaha maartay kulli ilaa hadda anu saasaan aan dhahaaye waxa weeyaan meesha waxa ku jirta waxa ku gaara asnaamtan waa khatar waaye waa lagugu cadaabaya waa awalan waa shirki waa lagugu cadaabaya tan labadana waa suuro waa lagugu cadaabaya ilaa aad nafta ka gelisid mana gelin kartid haddaba waa la kuu sheegay warayniyaho waxa weeyaan waxaan naftayada la jecelnahay idin la jecelna war jooga war waxaan joojiye war niman yaho waxaan joojiye war ilaahin ka baqa war cadaabta ka baqa war waxaanu waa cadaab waay waa inkaar waay waxa weeye meeshaad ku socotaan meel khayr le maahan oo adduunkana khayr ka soo heli maysaan aakharana cadaab waay waa idinla talinaynaahe joogoo soo noqda ilaahay u soo noqda xaggiisaa baraka jirta حقيسا عز جرا أيبتغون عندهم والله وعجيب والقرآن عجيب أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ورما وقال هذا واحد كره هذه عزي يا شرف كره هذه نساء إلهي اكتسى شرف ياله سمعت إلهي اكتسى شرف ياله إلهي بلغو شرفه به إلهي بلغو عزه به إلهي بلغو حوقه به إلهي بلغو شمارته لغو أوت صدا war waxaan nimankii carbeed oo sida iyadoo kale ayagu maartay islayn jiray oo midka kale maartay oo maartay haduu cid kale waayo oo la diriri jiray sidii oo kale aan hareerbeediye ayaa ku ciidoobo adduunkii kaga adkaaday waxaanu arrin sahlan ma aha quraankan iyo xadiidkan nimankii qaatay adduunko dhamay sayid ku noqdeen haddii marka qola ka daciiftaba qola qaadan jirtay maartay nimankan turkigaahi oo maartay baalkii maxay marna salaajiqada la oran jiray markaan kalena maartay Uthmaaniyiinta la oran jiray waxay ku cizoobeen oo maartay ay adduunka ku furteen oo lix qarni miya ma qam lix qarni iyo ziyaado ay maartay caalamka ku xukumayeen waxay ahayd cizadan ay qaateen war qoladii cizadan qaadato diintan qaadato waa ku cizowda ayaga adduunka ayaga ka soo baxay war arrintan waa arrin khatar waay war arrintan u soo joogsad war u soo noqd war ilaahay intuu idinku karaameeyay inaad karaamadii xoortaan waa khatar waay in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim meel wuxuu leeyahay ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
ورنميه وحان وحان وحي مارتي هداد إسلامك إسكبد دشان واد دلودي هداد أصول نقطان وكو عزوبيسا هذا أصول نقطان وكو عزوبيسا عزاء إلهي وصن إذن سينا والله أننا أركين ومن يهين الله فما له من مكرم نين إلهي دليي والله عدينا أيسم كرو قادي أيسم مارتي عزي شرف إليس السيني سكة استهدي ليه إلهينا وانا هيستاوحون وهيستا دينتي سينتون نسيي أن حورنو برقاء أن تورنيو وروحا كانوا محويان من يهو ماشان وهلاق واي ورماشان هلاقات كسعوتان ورهلاقان أمدي كسو عليا أديكونا كسو النقض ورهلاقان يدلقان كسو النقض أمديني كسو عليا أديكونا كسو النقض أمدان هذا وحوي وابا أركيه وحويان هذا وابا سيدا بابا وركستو ددك waxaa laga sheegaa Umar inuu yiri annaasu ala diin mulukihim dadka xukuumaha diintooda yeelanaya maarta macnaha dhaqankooda yeelanaya waa arkay hadda dadkii sida ay yihiin fadeexada ka jirta waa la yaabaysa gabdhihii iyo wiilashii iyo waxay sameynayaan bahalkan internetka oo hatta la xishoonayno banaanka la soo dhigayo soo wajheedi banaanka la soo dadkina saas uga daba yaacayaan oo hadda waxaan arkay gabar iyo wiil xuno maartay wiil qaawan iyo ma gabar qaawan iyo wiil maartay food dheera ah oo hadda dad aan 2-3 ka yareyn ay u maartay bahalkii ay u fadhiyaan markaas waxaan la yaabay wax la yaab la waay 1,700,000 iyo ziyaada daawanaysa 1,000,000 waaye iyo 700 iyo ziyaada daawatay kulay marka arkaanay 700 iyo xooga daawatay waxaana laga yaabaa qofkii maartay khayr u sheegana inaysan maartay yaani waa boqolaal waxa daawana soo wajeedi warnimayo waxa keenaya yaani dadkan madaxda ah meesha u socdaana dadku u socdaan waxay noqonayaan waladiina markii naarta laga hadlayay dadka naarta ilaahay maartay oo galay oo markay maartay dadka muuminiinta ay yiraahdaan war maartay biyaha iyo maartay baadka wax naga sii إليه إن الله حرمهم على الكافرين مركزوا إلهي تلمام الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وطبتان واي الذين اتخذوا دينهم دين تودوا حي كدكتين لهوا ولعبا عياري كدكتين عيار ددك واوي تدك عرورتي دهان أي كوكالا دقان لهوا ولعبا وسو مارت والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا نلوشي الدنيا يرايد أو قابنيت أكدسي مركز ليه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ما انت هالماما ينابر سيدا يوم كمال انت انو هالمامين والميشان مركا آخرها جرت والباثية جرت والحسابها جرت والميشان وحا كان اكس عطان وميل خطر وايه والجوغة والصول نقضة والإلهي أصول نقضة والعزي الدنيا آخرت إلهي دنسينا يا صول نقضة سو مارتي marka lagu antaasaan rabay inaan idin la wadaago oo idin ku biiriyo hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ku anfaco Allahna idin ku anface waa saas waaye waa ku celinayay wax weeyaan arintan yaani dibka jira wax kamida waaye in la joojiyana waa iyadu yaani sideeday u fiicanta in la joojiyo oo ummadii maartay yaani dibka laga joojiyo inta sideeday u fiicanta waana ka mahadinayna anigana dabiicada iyada basaasa waxa wixii wanaaga waa ka shukrina ilaahayna insha Allah ta'ala inuu ka shukriyo waa dhici karta laakiin hada asaaski hadii la dumiyo waxa soo dhan waxba noqon maaya ila asaaska dunsan waxa diintiyaaba dunsanba tawxiidkiya dunsan cibaadadiya dunsan akhlaaqdiiba dunsan ahkaamtiiba dunsan wax maanta noo dhaqan qof ma sheegay wax maanta noo dhaqan lama arko tawxiidkii nooma dhaqna soo moojeedi إلا توحيدك كمتها حكم توحيدك كمدي سو مارتين أخلاق دي نوم دقن عقيبها كي محوها نوم دقن مارت عبادة نوم دقن ودتك واكو أنا مارت قبله يقول شي وحي سمين ين قال لي يابس هذا حتى حافظها تاي وحن لي يابي وا هذا حافظها والس مركز الولي ولا اسبندقايا سو موجود سيدي أفريكان كي حنحنكا يو مارت بالكي محيط مارت قابك يو عياريانا لقد ديانا إلا واساس واقو حميلي جوغان وإيمانا يا مركاسا لقد ديانا هدان داد توسية أي سيجيرين وجدك سيا عنكوها قاي ودادكو وادو مايان وح في عني المودة يان وحي أدونك كو أركان هدي لا ما يقانين وح كفي عن ما هيستان وحي كفي عنا واكتاقين
soo ma jeeda waa ka tageen meeshii madaxdu aadayeen waa saas waay intooda badanaan sheegay wax khayr laga weymaa dadka ummadan ilaahay muslimiinta ahi xumaan kuma kulmaan laakiin waxa weeyaan marba laakiin madaxdu meeshay jirto dadka intiisa badan meesha madaxdu jirtay aadaysa madaxdiina markay dalaal doorato oo baadiya dadkii ay wada noqonayaan baadiya dadkii la wada noqonayo war soo noqdo war jooga war nimankan baarlamankow waxa wey inkastoo hadda muddadeeda ka dhamaatay laakiin waa un tamthiilkii waa un joogtaan intii laydinkala wareega midha waa joogeysaan madaxweynuhu waa sidoo kale haddii markaa inta aad meesha joogtaan aadnaan wax bedelinin waxa weeyaan balaayadaas ayaa adinkaa mas-uuliyadeeda waad qaadanaysaan sidii kuwii hore u qaateen adinkana u qaadanaysa ila waa isla jidkii wa sidii kuwara u qaateen adinkana u qaada isla jidkii wa war joogo ka soo noqda jidka ummadana ka soo celi taariikh fiican haydiin noqoto ilaahay subxaana wa tacaala aada ula tagteen war joogo waxaan ka soo noqda war meeshaan waa meel halaag way adduun iyo aakhiraba adduunkana inaad ku naalootaan suuragal maaha adinkuba caalamulislaamiga fiiri inaad ku naalootaan suuragal maaha inaad ku cizowdaan suuragal maaha si kasta inta la yeelo wallaahi inaadnan ku cizoobin wallaahi inaadnan ku faa'iidey sababta waxa weeyaan maarata ilaahay ballankiisaa yaal soo ma jeedi waxaan marka ka soo jooga war ka jooga naasnaamtaana baabi'iya adinkuna kulligiin mas-uuliyaad ka tihiin waxaan iska baabi'iy hadhow haddii kale wallaahi waxa weeyaan laba siyoodaa laydinkugu cadaaba mid waa shirki oo adinka maaratay bahalkii u istaagaya waa cidnoo cibaadaa waay soo ma jeedid waa shirki waay oo adinka aad maaratay karaamaynayo weyneynayo saas oo kale waa laydinku cadaabaa wallahi soo ma jeedid midna waxa weeyaan suurada nafteeda waa laydinku cadaabaa ilaa aad ka noolaynaysaan war jooga war ka soo noqd war soo noqd asalaamu calaykum waraxmat ullah